بسم الله الرحمن الرحيم داوديال waxaan joognaa xafiiska wasiirkeena waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre fanaankeena Sharma Boy agaasimayaasha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waadi salaan dhamaantiina waa wasiirkii ugu horeeyay azumaad gaar ah u sameeyay fanaanka Sharma Boy oo waayahan dambe dhalinyarada madadaalinayay wasiir kusoo dhawow halkan waxa waaye waa channelada Durdur Media iyo Bu'aale Media xafiiska joognaa sharaf gaar ah noo tahay wasiir marka la dhaho dadka waxa waxay niyad gelinayaan qof aan loo tagi karin qof xirxiran qofka marka uu tagayso oo dad badan in loo soo maro sababaysa laakiin uu faraxsanahay sida maanta noo soo dhaweysay sharafta iyo qadarinta aan oo sameysay aad waxaa horta marka u horeyso aan ka mahad celinayaa ajiibidda uu halyeyga yar dhalinyarada artistaha Soomaaliyeed soo baxayo uu ajiibay markaan fariin u faray inaan qolanno anoo markaas matalayo wasaaradda waxbarashada ujeedada aan Sharma u marti qaaday waxay ahayd marka u horeyso inaan horta barto nin dhalinyaro oo artista oo wanaagsan oo hal abuur leh oo saameyn badan ku leh bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inuu yahay horta inaan dadka ka barto aan isbarano marka labaad in aan uga hiiliyo muxuu ahaa warka suuqa loo geliyay oo ah inuu sabab u ahaa imtixaanaadkii dhacay Sharma mas'uulka ahaa taas fikir xun buu ahaa fiican ma ahayn waxayna ahayd mid runtii dhaawici karto qof dhalinyaro oo yani ma taqaanaa sida Sharma Boy oo kale in muxuu ahaa runtii la dhaawaco mustaqbalkiisa oo la yiraahdo imtixaankii la dhacay asaa sabab u ah dad siyaasiyiin ah waxaa sameeyeen muxuu ahaa marka taasna inaan uga hiiliyo oo aan sheego inuusan waxaas uusan saameyn ku lahayn balse dhinaca kale laga yaabo inuu saameyn ku yeesho muxuu ahaa ardayga inuu niyadiisa wanaagsanaado oo mataqaanaa uu hagaago taasna qasdiga ugu weyn ahayd qasdiga kale waxa weeye in asiga laftirkiisa aan ku baraarujino in muxuu ahaa saameyntiisa xoog leh wadanka uga faa'iideeyo ubadka dhalinyarada yar uga faa'iideeyo in ay waxbarashada ahmiyad weyn leedahay oo ku baraarujiyo sidoo asigaba uu arday wanaagsan uu soo ahaa mataqaanaa amaba hadda uu yahay in muxuu ahaa oo inta kalena uu saameyn ku yeesho in iskuulaadkii ku mintidaan waxbarashada ku mintidaan intaana inaan muxuu ahaa asigana aan ku baraarujino ujeedada intaas ahayd mar kale waxaan ka mahad celinayaa muxuu ahaa sida wanaagsan uu soo ajiibay inaan kulanno aadan uga mahad celinaya adigana sidoo kale barasho wanaagsan aadan kaaga mahad celinaya inaan muxuu ahaa bahda sugaanta iyo samayso dhinacay wasaaradda ka mid yihiin sidaad la socotid muxuu ahaa hidaha iyo dhaqanka muxuu ahaa annaga wakiil uga ah wadanka marka bah yar oo gees naga jirto oo mararka qaarkood ku dhex qaldamo fanka fanaaniinta heesidu iyo fikir curintu waa kala labo laba qaanad ay ku kala jiraan marka in bahdii isku soo maaxday aan nahayna aad aan ugu faraxsanahay Sharma barasho wanaagsan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay شرفنا وطهر أنت حالة شوقنا وحاوي واحد أنه عندنا ما أنت حالة شوقنا وحاوي حقيقة شيء واحد شو أنا شوقنا كل فرحة ذي يعني قارئة وخاصة إنه إيه وسير واحد شو ما أنت سجنا أنا أصحابتي هذا كل لما نفنس Sharma Boy هذي لده أسئلة تركيز فنس وليه أنا وقتنا فنس علينا تاجر إيوه أنت بالله لما هو حال هذا هلا وجاده هواي أنا إيوه جود حبردت
صاحبها أنا مركز لك صوته هادي وحاولت مسؤولين كل ما شوي جوجانا كم ديرانا هذا الك وانك بحاول السلام عليكم farxada ay tahay marka ugu horeyso wasiirka iyo hadallo badan oo la sheegay in halkan lagu soo daboolo dhalinyarada badan ay arkaan farxadda iyo bogaadinta waxay tahay wasiir ma ahan markii ugu horeysay oo wasiir iyo fanaan ay kulmaan laakiin waa wasiirkii ugu horeeyay si qalbi furan intuu ugu cofanaan dhaho hadda imo xafiiskiisana ku qaabil hambalya ku leenahay shaqada iyo dhalinyarada iyo waxbarashada iyo sida u heysana waa kaaga mahad celinayna waxaan siinayaa hambalyo agaasima waa hambalyeynaya wasiirkayga iyo Sharma Boy inay maanta maaragtay halkan ku kulmaan caadiyan waxaan sameynaa wasaaradahan inaanu maaragtay dhiirigelino daayarta halabuur kale waa waxyaalahan ka dhaxalay maaragtay hogaaminta wasiirka si loo helo maaragtay curiyayaal iyo dad maaragtay waxbarashada ku dhiirigeliya maaragtay ardayda maanta halkan waxa dood baa dhaxmartay wasiirka iyo sheekooyin dheer wasiirku waxa uu uga waramay si uu maaragtay xog u siiyo maaha si uu uga codsado inuu heesada ma soo qaado oo ku amaanayo sida ay dadka qaar sameeyaan wasaaradda iyo maaragtay iyo wasiirada laakiin wuxuu sameynayay inuu maaragtay xog dheeraad ah siiyo si uu bari ka maalin halabuurkiisa ugu maaragtay ugu dhiso maaragtay isla markaana uu maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uu ku dhiirigeliyo maaragtay halabuurka maaragtay waxbarashada iyo dhaqanka wanaagsan maadaama aanu nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan maaragtay mas'uuliyad baan naga saaran inaan maaragtay ardayda iyo maaragtay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo inay maaragtay caadaystaan dhaqankeennii iyo maaragtay sidii ay bulshadeenu u soo noolayd halabuurku ka mid yahay Soomaalida waxa lagu yaqaanay haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga fanka haday tahay xagga maaragtay sheekooyinka haday tahay xagga riwaayadaha haday tahay xagga heesaha dad maaragtay aad ugu wanaagsan xagga maaragtay halabuurnimadaas waa u hambalyeynaa waxaan filayaa inay maanta noqon doonto inaanay noqon doonin maalintii ugu dambeysay laakiin ay noqoto maalintii horeysay ee maaragtay dhalinyartani ay iyo wasaaradda xiriirka dhex maray wasiir Goodax aad baan ugu mahad celinayaa inuu abuuro maaragtay isku xidhkaasi